maxaad ka ogtahay qaraxyada foolkaaneed ee gudaha Canfarta waqooyiga Itoobiya dhulku uu tararmaya wuxuuna u kala jeexmayaa sidii boorso dilaacaysa waa mid ka mid ah goobaha ugu yaabka badan ee dunida dhulka hoosta ayuu ka furfurmayaa sidii duntifmaysa saxanada dhulku way kala fogaanayaan waxa halka ka socda wax mucjiso ah axadii iyo isniintii maxaa ka dhacay dhulkaas hayli gurbi oo ah buur ku taala waqooyiga Canfarta ayaa qarax xoogan samaysay dhowr saacadood ayuu qaraxaasi socday waana qaraxeedii ugu horeeyay tan iyo bilowgii juqraafiyadda cusub ee adduunka ugu yaraan 12 sano waa markii ugu horeysay ee qaraxdo waxay daruur qiiq iyo dambas u kala tilaabisay waqooyi bari ee badda cas iyo badweynta Hindiya gaar ahaanna waxaa qaraxaas u saameeyay oo dadku guryahooda ku kala carareen saldanada Ammaan iyo Yemen waxaana duulimaadyadii la hakiyay oo diyaaradihii la baajiyay Delhi oo Hindiya caasimad u ah ilaa Shiinaha oo bariga fog ah ayaa seeriga digniinuhu isgaadheen hayli gubbi waa buurta ugu koonfureysa taxanaha foolgaanaha Erta Ale oo aan ula jeedo East African Rift System daruurtii qiica ahayd ee qaraxa ka dhalatay waxay gaartay ugu yaraan 45,000 oo feet 13,700 mitir ama 14 kilomitir oo dhinaca hawada ah waxa meesha qaraxani ka dhacay ay kulmisaa saddex dilaac oo dhulka ku socda oo waaweyn saddex dilaac oo afka qalaad lagu yiraahdo Afar Tribal Junction ama Red Sea Rift iyo Gulf of Aden Rift iyo East African Rift arintani waxay xiriir la leedahay labada saxan ee qaaradda Afrika maanta ku dul taagan tahay labada saxan oo ayaguna si tartiib u kala socda labada saxan oo kala ah Nubian Plate iyo Somali Plate labadan saxan waxay kala durkayaan qiyaastii 7 mm sanadkiiba waa tiro yar balse malaayiin sano gudahood xaalku sidan sii ahaanay ee waxay tiradaas yarta ee 7 mm ay sababi doontaa in wadamo xuduudo eega wadaaga aanay xuduud dhuleed oo dambe sii lahaan doon kuwa aan isku dhaweyn oo hadda aad u kala fogna ay daris noqdaan mashruucan Erta waa mashruuc dabiici ah oo soo socday malaayiin sano dilaacyada jeexjeexida dhulka foornada magma ee hoos ka soo kacaysa iyo dhammaan waxyaabaha la arkayo waxay ka dhigan yihiin in Afrika ay ku jirto marxalad kala go' iyo dhalasho juqraafiyadeed haddaan Canfar u noqdaan gobolkaas iyo dilaaciisa riftigu waa meesha ugu dhow ee dhul cusub ka dhalan karo mustaqbalka waxa ka muuqda calaamadaha buuro foolkaana oo isdaba jooga dhulka oo hoos u sii socda heerka kuleylka oo aad u sareeya miyaad rumaysanaysaa in dadka Canfartu aanay seexan dhulkooda maalinkii haddii kala naftooda ayay waayayaan habeenkiina ilaa 9 fiidnimo dhinaca dhulka ma dhigi karayaan ayagoo ay naftu inay ka baxdo ka cabsanay waxaad arkaysaa biyaha oo sidii in dab lagu shiday oo kale u taqtaqay foolkaanaha gobolka Canfar ee ilaa hadda laga diiwaan galiyay waa badan yihiin waxaa ka mid ah hayli gubbi oo ahayd tii axadii dhacday ama isniintii Erta Ale oo ah foolkaana si joogta u dhaca tan iyo 1967 wuxuu dhacaa sanadkiiba hal mar iyo Nabro oo ahaa qarax bam oo kala ah oo dhacay sanadkii 2011 qiiqii ka dhashayna uu gaaray ilaa Carabta iyo kuwa kale haddaba dhacdooyinkani miyay sharaxayaan ama sidee u qaabeynayaan mustaqbalka qaaradda Afrika juqraafiyadda ee ka socota waxay tilmaamaysaa mustaqbal cad mustaqbalkaas oo Afrika waxay noqon doontaa laba qaaradood kala taga labadii saxan ay ku taagneed qaaradda ee Nubian Plate iyo Somali Plate waxay keeni doonaan bad cusub oo ka bilaabata gobolka Canfarta qaarad cusub oo xuduud la yeelata bariga Asia oo Soomaaliyana ay hooyo u tahay dhulal hoos u sii dhaca oo noqda marin biyo gala wabiye ama harooyin dooxada Rift oo isu bedeli doonta bad yar oo cusub qaybaha bari ee Itoobiya waxaan ka wadaa gobolada Soomaalida ay ka haystaan iyo gobolka Canfarta dalka Soomaaliya Eritrea iyo Djibouti waxay mustaqbalka noqon doonaan jasiirad tectonic ama dalal samaysta qaarad cusub waxaan kugu soo xidhayaa Afrikada cusub ee dhalanaysa gobolka Canfartu waa maktabad laga akhrin karo mustaqbalka dunida ilaa maanta aynu aragno volkaanooyinka qarxaya kuleylka mantanka ee aan la arki karin dhammaantood waxay bixinayaan hal fariin oo ah Afrika waa qaarad kala go'ays oo dhalaysa cusub gobolka Canfartuna waa meesha ay dunidu ka arkayso dhalashada juqraafiga cusub juqraafi ayaad igala socotaan haddii aad nagu cusub tahay boga follow saar haddii aad nala socotayna like iyo share bay isugu darso u gaara saaxiibo badan nabaadiino